dambaystii xaalad adag ayaan ku jirnaa waddankan 26 sano wuxuu ku jiray dhibaato iyo burbur iyo qax iyo dawlad la'aan hal habeen iyo laba habeen iyo 5 bilood iyo 6 bilood waxba kuma hagaagi karaan waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inay fahmaan intii aan wax burburinaynay ama dhib ku dhacayay in lamid ah yaa loo baahan yahay dalkan inuu istaago oo caalamka la tartamo London ayaad naga dhehanaysaan daawadayaal ciidankeena dalka Soomaaliya xurriyadii markii la qaatay iyo dadaalkii ay galeen intii ka dambeysaba way jireen marxalado kala duwan ay soo mareen dalka iyo dadkana way u adeegayeen iyagoo marxalado kala duwan iyo duruufo kala duwan ku sugan dabcan dawladihii iminka jiray oo dawladii hadda ugu dambeysay 4 sanana ciidanku si fiican buu u dhismay aad baa loo dadaalay iminkana waa la sii dadaalaya maxaa la gudboon shacabka Soomaaliyeed inay kaalin ka qaataan inay taageeraan dalkooda iyo dadkooda ciidanka Soomaaliyeed muxuu ahaan jiray muxuu yahay maxaa la gudboon mar kale aynu baldib u xusuusano qaabka iyo sida ay bulshada Soomaaliyeed ay ahayd daawasho wacan كما حبنا هديدي تدخلي أنقبلو حبنا يوهو قراتنمي قريدو ذا تشعليو حبنا يوهو قميسيقو قمعو وفيسو حبنا يوهو ننقعاليو قيقو تشعليو كما حبنا هديدي تدخلي أنقبلو حبنا يوهو قراتنمي قريدو ذا تشعليو حبنا يوهو قميسيقو قمعو وفيسو عشرو ما مرتي وبابا ديني وعشرو ما مرتي رجال السيو جديجا هياكا وضحك السيكورا daawadayaal weli waxaad nagala socotaan waa telefishinka caalamiga Universal Studio London iyo barnaamijka ku saabsan maxaa la gudboon shacabka Soomaaliyeed iyadoo aad muuqaalka adeehateena uu ka tarjumayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo taliyihii ugu horeeyay markii xorriyadda la qaatay Allah u naxariistay oo ahaa General Daawud Cabdulle Xirsi iminka oo ah 2017 kana ciidanka waxa taliyo u ah Major General Maxamed Aadan Axmed iyadoo abaanduulana uu yahay General Ali Baashi Maxamed oo dabcan labadoodana barnaamijyo aan ku soo qaadan doono ay uga sheekeyn doonaan ciidankan taariikhdiisii iyo heerarka uu soo maray leenka telefoonka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh calaykum assalaam soo dhawow walaal magacaaga halkaa joogtid walaala xorriyo faraxa la yiraahdaa haye oo joogta London haye xorriyo magacaagu waa xorriyo sidaad u aragtaa arrinkan walaal ma xuma waa wax wanaagsan laakiin su'aal baan rabaa inaan idin haye soo gudbo walaal idin weydiiyo haye walaal soo gudbo Soomaali Maxamed dhanay u taalaa su'aashayda waa gartay waxay tahay Soomaali 8 February may madaxweyne yeelatay mase 60 ilaa hadda la lahay madaxweyne dabcan su'aashaas jawaabteeda 60 ilaa hadda madaxweynayaashu isbedelayeen okay marka maxay tahay sababta oo maanta loo buunbuuninayo wax walba loo leeyahay Soomaali waa midowday qaran baa la helay baq loo wada waagaag marka
ay hadda ammaantu ka timid gees walba oo hal magaalo aanay ka iman xurriya dabcan adiga magacaaga xurriyadda ayuu ka tarjumayaa dadka adiga kulamida maxaa la gudboon inay dalka iyo dadka u qabtaan annaga mar walba waxaa nala gudboon oo horeyna ugu taagnin haddana ugu taaganahay inuu wadankeena hagaago shaksi maaha waxaan taageerayno si fiican waa dadka iyo dalka iyo diinta soomaaliya si fiican laakiin waxaan diidanahay nin shala wadanka dembi ka galay oo buug xun qoray oo 60 ilaa taas xogaa adoo iga raaliya xurriyo xogaa arrin shaksi ayaad ka hadlaysaa annaguna dan caama ayaan ka hadlaynaa adigu hadda waxaa la rabaa inaad matashid codkaaga adoo ku matelaya in ummad badani ku daawanayso ku dhegaysanayso waxa la gudboon shakhsiga Soomaaliga ayaa muhiima berita adiga mansabka qaban kara oo wax noqon kara prime minister noqon kara wasiir noqon kara hadii la yiraahdo xurriyo sidaas bay ahayd kuma wanaagsana laakiin xurriyo waa inay hore u socotaa maxaa marka la gudboon dadka adiga kulamida adoo raali ah waa hal mital ku siinaa شال محوم هذا قال لا يا ما أنت حلوت تلسل لا ما أنت ودي لا يا حتى الشيخ محمود وما حد سنته ولا ما هايو أضوء يقرأ لي برنامج كهذا عن كتير أنا جو كره لي محمد حاج عقب مدقة حلوريتنتي لحية طبعا كبش في الصومالية خميستي ما هاد جارة أيو أجدي مدحوينه حسن الشيخ محمود هي الدولة دي سهر كأيضلك يضدك السوق جارسيان السوق الواحد وبالشدة قعد صدي إنه يساس ولا شيء شقيان أرنتا أدوكم مياد موقته ولا والله ما وارنتا لكن وحوير مدحويني هره إلى لا تسنا ودك الدنيا تضباطني لبدي سومالي بلاد هاتين السعودية ما يوحوا كهذا يا يسوق ولا أدوك حوجا وحن كادريم يا دجال كلا يد كجرتا وان كحوم هاي دجال كاس كلا يد كجرتا برنامج كلا يدعي كرتين عن وضع قيب قادنا حرية وكم هذا النية هذا وما تسنتاي لينك كلا تليفونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هاوك سودو وين يا ولا المقع قال كاتشوكتيد أنيسة مانشستر سودو ولا سيداد واركتا إن كالين شعبكو كقادن كران afka baarkiisa inaanay ahaan oo kaliya in afka laga taageero dawlad iyo madaxweyne dalka iyo dadka dadku shacabku ay isugu duubnaan karaan bay kula tahay wallahi waa qurux badan tahay horta in dawladda lala shaqeeyo Soomaaliya marka ugu horeysa ayaga ay dhibaatada iska daayaan because madaxweyne kaliya waxa uu ma qaban kara shacabka ay ku xirantaa ayaga inay hubka iska dhigaan ee dagaalka iska joojiyaan si fiican ciidamada shisheeye ee dacwada faraha badan ay u qabaan waxay wadanka ka bixi karaan horta inay ayaga nabad sameystaan dad isku duuban ay noqdaan dawladooda la shaqeeyaan marka waxa noqonaysa dadka dariska ah oo maxaa la yiraahdaa ciidamada noo keenay way ku qasban yihiin inay wadanka ka baxaan hadduu wadanka nabad ka dhacdo ay Soomaali ayada ay isdilinaysan madaxweynaheeda ka soo horjeesan iyo dawladeeda laakiin erayga ah dawlad baa noo dhalatay waxaan rabaa laba hadalna ka dhaho hayo walaalo burburkii الله أن حريستي سياد بره وحاك الدنبي دولة بدن سفعان مد كرسي مدحتوي صادقو مد علن سورة مد جدد كحاقو مد والبحبو سمي وحافي عن إن الحصاية جان عبد الله يوسف الله أن حريستو مدحتوي أسقى سميستي شريفك كوحيجي حسنة كوحيجي إن أشياء لقى بالعامن وأنا انجسار لأن قندتك نفس الدودة سومالي ميسك أساري إن عيجين اللي إلاوين أديات madaxweynaha la soo dhaweeyo lala shaqeeyo qabyaalada meesha laga saaro laakiin dadkii horene aad Soomaali aysan noqon dad aanan abaal lahayn aad gabar ka horeysa tiri 60kii ayaa xorriyad la qaatay intaas oo madaxweynaha dalku yeeshay maaha in ay noo dhalatay dawlad ay tiri gabar xorriyo oo ka yara meesha ku dhex jiro oo ah dawladda noo dhalatay waxay gaaraysaa qof inaan noqono dad jisaariin ah oo ilaawno dadkii wadanka wax u soo qabtay oo maxay madaxtooyo dhisay oo nabadda waa waqti badan ay qaadanaysaa because dagaalka xilli badan uu socday aad naniisa waa runtaa waa fikir wanaagsan ma sha Allah marka waxa dhigila dawladda cusubna hala taageero tii horena ha loo mahad celiyo aad baad u mahadsan tahay mahad celintuna waa muhiim taageeraduna waa muhiim ayaa fikirkaagu ani soo ku mahad celinaya walaalo laynka kale ee telefoonka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله hawa ku soo dhaweynaya walaal magacaaga halkaad joogtid عبد الملك واكو سلامي مقعي وحال هذا عبد العزيز صلاة مقالة بريستول وهاجاك بريستول baad joogtaa sidaad u aragtaa walaal inay shacabka Soomaaliyeed kaalin mug leh uga qaadan karaan in nabadda iyo wanaagga iyo horumarka dalka laga shaqeeyo والله aad iyo aad u wanaagsan tahay doorashadii dhacdayna madaxweynaha ku guuleystay waa u hambalyeynaya si fiican ummadda Soomaaliyeedna waxaan dhihi lahaa ha madaxweynaha si fiican loo garab istaago marka koowaad si fiican
marka labaadna dadka iyo dalka haddii dadkiisa la abaal gado qurux badan ma sii yeelanayso si wanaagsan marka waxaan ku talinayaa madaxdii ka horeysay maxamed cabdullaahi farmaajo si fiican in tixgelin la siiyo oo dadka la qadariyo si fiican duruufihii ay kusoo shaqeeyeen oo waddanka ciidamada shisheeye jooga iyo gumaysiga la sheegayana in la kala saaro aad baan kuu fahmayaa marka arrintaas waa arrin weyn si fiican qodobada dadku ay leeyihiin haddeer ay dowladnimada dhalatayna xanaf bay abuuraysaa taas maya dabcan dowladnimadu waxay dhalatay markii xorriyadda la qaatay sida dad badani qabaan laakiin mid baa wiigii hore laga dhigay ogow cagmadhigow maya taas aragtida qofka shaksi ama dad meel degan xaflad ay qabsadeen aragtidooda maaha mid ay shacabku wada qabaan dabcan adigu waxaad qabtaa 60kii inay dowladnimadu dhalatay dad kale waxay qabaan 60kii inay dhalatay marka taas la qabo oo ah mid taariikhda leh oo suntan ayaa jirta oo madaxweynihii ugu horreeyay aadan cabdulle cusmaan allah u naxariistay oo ahaa iminkana madaxweynaha ugu dambeeye la doortay waa farmaajo intii madaxweyne u dhexaysana taariikhda ayaa xusaysa arrinkaas saad u aragtaa walaal cagmadhigo waa arrin wanaagsan waaye taariikhdu way xusaysaa laakiin maalmahan waxaa moodaa dad cusub oo gadaal dambe ka soo baxay inay wixii oo dhan dhanka kale u dhigayaan aad iyo aad marka waxaad leedahay si guud waxa loo wado si guudna waxa loo wada xuso hawshu weli way taallaa waddanka dhibaatooyin fara badan uu soo maray ciidamo shisheeyaa joogo ciidamada shisheeye soomaaliya ay kaalmaynayeen waataa maanta madaxtooyada xilwareejin ay ka dhacayso martisoorka iyo quruxda uu ka socdo si fiican cid kastoo la doortana dadka aan hadda sharcaysanayn oo dariska lagu sheego inuu la shaqeeyo wuu ku khasban yahay si fiican sidii kuwii horeba ay ula shaqeeyeen aad baan kuugu mahad celinayaa adigoo barnaamijka iga